ninkii waxaa sameynayeen madaxa loo salaaxayo oo leeyahay madaxweynaad tahay iyo maamul baad tahay ee aan argagixiso loo aqoonsanayn balse uu isagu leeyahay argagixiso bay la dagaalamaysa waxaan u malaynayaa micnaha argagixiso dictionary-ga kamuusan eegin micnaha argagixiso waxa weeye in aad dad ku khasabto adoo isticmaalaya khasab iyo handadaad iyo dil iyo dagaal in aad cid ku khasabto waxayan doonayn waxaanu siinaynaa hay-adaha networkyada localka ah ee Soomaaliya ka shaqeeya oo soo booqday magaalada Laascaanood si ay u ogaadaan dhibaatada magaalada ka jirta waxaan filayaa magaalada waad soo dhex marteen burburka gaaray waad aragteen dhimashada dadka soo gaadhay waad aragteen magaaladan in ku dhow 500 oo kun oo qof baa ku noolayd maantana 50 kun oo qof gudaheeda kuma ay sugna waxa qaxiyay daadad iyo duufaano iyo dhulgariir iyo dhibaato kale oo ka dhacday maaha waa duulaanka iyo xabadda iyo madfaca maamulka Somaliland dhimashadu 150 madaxay la galaysaa in ku dhoweeye dhaawacu 500 kor buu u dhaafay guryaha dumay madaafiicdu ku dhacday xaafado dhan baaba horta baabaayo aan la geli karay oo dhulka la siman intii aad aragteen idinku ishiina ku soo aragteen waxaan malaynayaa kontameeye inay tahay rag iyo dumar bale xabaal wadareedadii markii la kala aasi kari waayey cagafta lagu aasay waad arkayseen waxaasi wax indhaha laga qarin karo ama muuse uu dadi karo ama uu oran karo argagixisa meesha ku dagaalamaysa ama uu oran karo nabadgelya ka jirta iyo barwaaqo iyo bashbash ma ay aha waana wax lagu xisaabtami doono oo waa war criminal dambi dagaal baa magaaladan ka dhacaya cad maanta meel kale oo adduunka ka dhacayaan Ukraine ahayn ay court ha noqoto ama United Nations ha noqoto ama ha noqoto IGAD dacwadeedana ilaahay dukuro yahay meel la'aan dhici mayso dhinaca international community-ga dhinaca yagana waxaanu ilaawi doono ma ay noqon doonto warbixinta waad haysataan annagu dad self defense ku jira oo naftooda iyo guryahooda iyo maalkooda iyo sharaftooda ilaashanayaan nahay inta qof naga nool yahayna xaaladaasaanu ku sugnaanaynaa ilaa aanu ku guulaysanayno inaanu dadkayaga iyo dalkayaga aanu u madax bannaanaano qiimo kasta oo ta noloshu ay u qaalisan tahay oo ta maalku ay ku xigto oo ta hantidu ay ku xigtana waanu gelinaynaa waxaanu ilaahay ku mahadinaynaa maanta taa in aanan ku kala qaybsanayn in dhibaatadii ayna soo kartay enough ay tahay maanta in geeri iyo gobonnimo wax nooga dhaxeeya ayan jirin waxaanu ugu baataa ilaahay kula Soomaalida kale arrintan arrin indhaha laga qarsan karo ama laga aamusi karo ama iska tagaysa inayan ahayn waxtarku wuxuu ku jiraa in qofka khaldanna khaladka loo sheego la yiraahdo muusow wanaag kama imaanayo waxaan duqaynayaa Laascaanood dadkeedaan leynayaa khasab baan ku ogolaysiinayaa waxa aan rabo wanaag ka imaanaya ma uu jiro in lagu kala dhinto dhimashadu badato labada dhinacba la kala go'o colaadu fido geeska Afrika ay wada gaadho ilaahay dukuro yahay ay qabiil iyo isr ay u fido buu ka shaqaynayaayo ka talinayaa muuse ciddii gacanta ka qaban lahayd waa loo baahan yahay ciddii u bareeri lahayd waa loo baahan yahay ciddii oran lahayd annagu waa ishaynaaye ciddii marka lala safto wanaaga waxaa la yidhaahdaa xaqdarradu waxay tanaadaa
oo ilaahay hadduu kuu roon yahay kor u kacdaa marka xaqu aamuso waxaad moodaa Soomaaliya in ay xaqa ka aamusan tahay in yar mooyaane in yar oo fara ku tirisabaale war Somaliland ay waad khaldan tihiin dalkan iyo deegaankan aad ku duusheen xabadda la dhacaysaana idinkuma lihidina ka soo baxa guryihiina ku soo noqda maalinta codka Soomaaliyeed uu sida isku raaco xaqdarradu way jabaysaa inta laga aamusan yahay ee la leeyahay labada dhinacba xabadda ha joojiyaan labada dhinac xabadda joojinaya waa kuwe ma ninkan xabadda madaxa lagaga hayo ee la dhacayaa la leeyahay isdhiib haddii taa aad ku talinaysaan Soomaaliya isdhiibi mayno deegaanka yaga iyo dalka yagana naloogu talin maayo khasabna naloogu talin maayo inta Soomaaliya iyo international community-gan qoranaya leh labada dhinac waxaan u sheegaynaa in ay xabad joojinta ama xaaladda ay hoos u dhigaan arrinta ku soo dhawaada cidda khaldan khaladka loo sheego calina garle caydiidna garle nabadgelyana ku imaan mayso horumarna kuma imaanayo maanta waxaan u malaynayaa warbaahintii Soomaaliyeed ee localka ahayd iyo warbaahintii caalamiga ahaydba waa ay timid waana ka makhraati waxaanu sheegaynay waa nala arkay waad baahin doontaan hadday dhimasho tahay iyo hadday burbur tahay iyo hadday madfac tahay dagaalkii ugu adkaa shalay baa magaalada lagu soo qaaday dagaalkii ugu adkaa nasiib wanaag warbaahintu waa joogtay arrin la isku tuurtuuri karo ma aha waxaan u malaynayaa inaad duubteen dadkoo isdifaacaya iyo duulaan lagu hayo marka insha Allah taala waan qabo xabad baan kugu dilayaa madfac baan kugu dhufanayaa dhaawacaagaan dilayaa dhakhtarkaagaan burburinaya dee waa la garanayaa ilaahay hadduu kuu roon yahay international mar labaad iyo mar saddexaad leenahay arrinta haddaad rabtaan inaad dhexdhexaad ka noqotaan cidda khaldan cambaareeya oo qabta hoos u yaran kuleh waxaan insha Allah taala intaa ku dari lahaa meeshan dhimasho iyo dhaawac badan baa ka yimid dagaalkan ninkii dhintay iyo gabadhii dhimatay iyagoo xaq u dirir ah bay dhinteen oo maanta meelin ka wanaagsan meeshay joogeen bay tageen dhaawicii barakacayaashii xilli adag bay ku soo beegmay dagaalkana lagu soo qaado adduunka iyo dowladda Soomaaliya iyo international community-ga waxaanu iyo hay'adihii ku shaqalka lahaa aan u sheegaynaa in dayac ka jiro meelaha kaleba marka suuq yari gubto waxa soo qayla ba ka dhici jiray meeshan supply-gii caafimaadku waa yar yahay ama waaba go'ay dhakhaatiir qaliin ma joogto dhaawici waa dayacan yahay dadkii qaxay sanitationkii waxaan uga baqaynaa meelihii lagu qaxay in uu ka dilaaco cholera iyo ilaahay hadduu kani cudurradii faafa iyo halkaa biyo nadiifa ma haystaan guryahoodii way ka baxeen xilligii dhinacyadan dalka qaybahan ay ugu qaboobayd baa lagu jira hugoodii guryuhu ku gubanayaayoo yaalla waxaanu leenahay dadka ha loo soo gurmado teendhooyin iyo bustayaal iyo waxyaabihii ay wax ku cuni lahaayeen iyo meelihii biyaha lagu shuban lahaa iyo musqulihii portable-ka ahaa iyo ha loo keeno dhakhtarada shaqaynaya ee dhaawacyada la geynaya laascaanood ku yaalla ee kala baydh ku yaallana supply-gii caafimaad uu ka go'an yahay ha lala soo gaadho inahaasaanuna international community-ga aanu u sheegaynaa waxaan kaloo ku daraynaa international community-gu meelaha kaleba marka ay ka dhacaan dhibaato cidda samaynaysa waa la cambaareeyaaye barakacan iyo dhibkan ha la cambaareeyo hana lagu soo rogo cidda ka dambaysa ee magaalada duqaynaysa 21st century in maanta magaalo ka mida magaalooyinka Soomaaliyeed madaafiic lala dhaco iyo hoobiyayaal oo aan la qarsanayn oo guryihii gubanayaan oo dhakhaatiirtii shaqaynaysay uu madfac ku soo dhaco ninkii waxaa samaynayeen madaxa loo salaaxayo la leeyahay madaxweynaad tahay iyo maamul baad tahay ee aan argagixiso loo aqoonsanayn balse uu isagu leeyahay argagixiso bay la dagaalamaysa waxaan u malaynayaa micnaha argagixiso dictionary-ga kamuusan eegin micnaha argagixiso waxa weeye in aad dad ku khasabto adoo isticmaalaya khasab iyo handadaad iyo dil iyo dagaal in aad cid ku khasabto waxayan doonin